education platform. الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ومركلة إيو مع العمقادر يوسف عثمان فصل كتضباد مادة أف سومالي دروستي كساب سنة 10 كلباتن إيو تضباد حيران نقول من قبل دين جونا سير مقابة أيان ما أنت مركة كهذلينا سير مقابة مركة وام حي وقف عن قف داعد أواي معنا سير مقابة حقوق رسول مروى داعد لماذا لقى هذليا انت آن أخرين 10 كهر وحا أن كور علينا يا ويديمهن انت آن ندرسك أخرين سؤالها أنك جوابنا كو محاو أفنق يا محو كجواب يا واي إريغا سير مقابة أفنق وحواي وحا كترجمة إريغا سير مقابة مركا وطان شيئنا سير مقابة وحوا قف داعد قف أن وحبو قرصونين وحبو قيانين maxaa kugu soo lambar laba maxaa kugu soo dhacayo marka aad maqasho dhagar qabe dhagar waa khiyaano iyo dembi marka dhagar qabe waa dembiile waay marka dhagar qabo markaad maqasho maxaa kugu soo dhacay waxaa igu soo dhacaya waa ka naxaya dembiile waa dhib badan yahay moogta ayib aan galna marka fahamka qoraalka sheekaa marka halkan laga gelayaa beri baa waxaa jiray nin wadaad ah nin wadaad waxaa laga wadaa qofkii ilaahay ka cabsado oo salaadiisa tukado oo soomo oo is-ilaaliya oo wanaagsan meeshii uu joogay ayuu iskaga qaxay meeluu joogu iskaga tegey kolley wuxuu ku arkay wax aan fiicnayn waxa uuna tegey meel nin boqor ah oo aqoon jecel xukumo meel nin boqor ah oo cilmiga jecel uu xukumo meeshaasuu tegey boqorkii bay isbarteen oo soo dhaweeyey koow wax walbana siiyey boqor si fiican oo helay isaguna aqoonta ayuu bari jiray asagana boqorkii wuxuu u bilaabay inuu cilmigii u lahaa uu baro in muddo ah ayay aad isugu wanaagsanaayeen boqorkii isagii muddo isku fiicnaayeen oo aan la kala dhex mari jirin meeshaan waay meeshaas oo aan la kala saas waay kola ma ah oo aan la kala dhex mari jirin waxaa laga wadaa dhexdooda waa la mari karay laakiin waxaa laga wadaa macnaha labadooda saaxiib ay noqdeenoo cid soo dhex geli karto isku diri karta ma jirin wadaadkii iyo boqorkii saaxiib ay noqdeen nin boqorka la taliye u ah ayay arrintii la xumaatay nin marka boqorka la taliye u ah xogaa de wuxuu isdhahay ninkan wadaadka ama boqorka uu kaa jeclaada hadhow meesha adi lagaa tuuraa waa la xumaatay arrintii xaasidnimaa gashay markaabuu damcay in uu boqorkii iyo wadaadkii isku diro xaasidnimada dhibkaasay leedahay wuxuu is yiri wadaadkan iyo boqorka hadday saaxiib noqdaan ama adiga meesha lagaa saaraa isku diro marka niyadda gashtay boqorkii ayuu u yimid koow oo uu ku yiri hadalkaanuu boqorka ku dhahay marka wadaadku markuu kuu yimaado sankuu kaa qabsadaa si wax afkaaga soo uraya oo kale niyo boqoryo wuxuu yidhi ninkan wadaadka ah wuxuuba kaa dhigaa nin afkiisa uraayo oo markuu kuu imaado sankuuba kaa qabsadaaba bal u fiirso markuu caawa kuu yimaado caawa kuu imaanayo yiri bal markuu kuu yimaado fiirso adigana afkuu kaa qabsanaa saasuu iskaga kaa daboolayaa sidii wax kaasoo uraayaan oo kale saasuu horta boqorkii ku yiri kadibna la taliyihii intuu wadaadkii u tegey ayuu ku yiri caawa aniga ayaad ila soo cashaynaysaye oo waan ku casuumiye meel kale ha tegin fiiri wadaadkiina gooni u khiyaanay wuxuu caawa ana casho ku siinaayo io imow la taliyihii boqorku waxa uu wadaadkii siiyey raashin ay toontu ku badan tahay baashan toonta la yidhaahdo oo maraqa ay lagu darsado marka wax la karinaya raashinka ayuu raashin ka soo buuxiyey
markaasuu ku yidhi raashitoon marka haddaa cunto afkaaga way kasoo uraysaa. wadaadkii marka wuxuu ku yidhi markaad boqorka caawa u tagto afka ka qabso. saaxiibka marka caawa u tagto oo la sheekaysanayso afkaada qabso, marada iska saar si aanay toontu boqorka ugu soo urin. haddii kale toona afkaaga kasoo urayso boqorka waa ku nacaya. toonta urteeda boqorku wuu necab yahay. wuxuu dhahay toonta siday soo uraysaa boqorku waa necab yahay. markaa la sheekaysanayso caawa toonaad cuntay moogtahay afka ka qabso. wadaadkii ayaa sidii yeelay. markuu boqorkii u tegey ayuu afkii marada saaray. wadaadkii marka wuxuu yidhi boqorku waa run, afkaada urtiisa yuu arkin, caawa toonaad soo cuntay. ninkii boqorkii markuu wadaadkii boqorka u tegey afku marada saartay. boqorkana wuu fiirinay awalba wuxuu samayn doona wadaadka. boqorkii halkaas ayuu ku rumaystay sidii la taliyihiisii u sheegay. go-aan degdeg ah ayuu boqorkiina gaaray. majeedaa boqorkii marka wuxuu yidhi wallaahi waa run, ninkan afkuuba iga haystaaba sidii waxaan soo uraayo oo kaleeto. waa yahay warqad ayuu u qoray gobol kale nin boqorka uga wakiil ahaa, magaalo kale nin oo madax uga ahaa oo boqorka wakiil uga ahaa ayuu warqad u qoray oo uu ku yidhi warqadda waxaa ku qoran ninka warqadan sidaa markuu kuu keeno kurka qoorta waay ka jar. warqaduu qoray, warqaddii baqshaduu ku riday, wadaadkii uu dhiibay. wuxuu yidhi magaaladaas tag ninkii madaxadkaa u geey. warqadda haddii uu u geeyo maxaa ku qoran? meesha geeyo ninka warqadan wada qoorta ka jar. manaa boqorka wadaadkii uu rabaa inuu dilaba. dhibkaas dhan yaa ka shaqeeyey la taliyihiisi. wuxuu rabaa inuu isku diro boqorkiina, wuuba ku diray boqorkiina go-aan u qaatay. boqorka wax ma hubsaninba. animaa sanka iga qabsanaysaa uu niyadda ka dhahay, go-aankaasu gaaray. bal aan fiirina meesha ku dambayso. wadaadkii ayuu warqaddii oo xiran u dhiibay oo uu ku yidhi boqorkii wadaadkii warqaddii wuxuu ku yidhi u gee wakiilkayga gobolkaas jooga. waayahay marka la taliyihii boqorka, taliyihii maaha meeshaan, la taliyihii waay. la taliyihii boqorka ayaa mooday ama ninkii talada siin jiray in boqorku wadaadka hanti siinayo. la taliyihiyaa wuxuu marka boqorkii la joogay markuu warqadda u qoraayay wuxuu u malaynayay inuu lacag ugu qoray oo uu warqadda ugu qoray. marka macnaha wadaadkii marka hadhow markuu warqaddii soo qaato la taliyihii arkay maxaa lagu soo dhiibay warqad, maxaa lagu dhahay meeshaas geey. caadiyan marka qofkii warqad loo qoro lacagaa la siin jiray. la taliyihii marka wuxuu maleeyey in warqaddaas loogu qoray ninka in lacag lasoo siiyo. wadaadkii ayuu u yimid ee u imaanaya la taliyihii oo uu ku yidhi adigu iska joog, anigaa dhulka kaa aqaanee oo anigaa warqadda kaa furanaya, anaa warqadda mas-uuliyaddeedii kaa qaadaya waay oo u geynaya wakiilka gobolkaasi. fiiri lacag jacayl ay ka gaartay. wuxuu isdhahay meeshaan lacag boqolkaas ninka wuxuu leeyahay ninkaas lacag sii, wadaadka lacagaa la siin rabaaye. wuxuu yidhi adi iska joog gurigaaga, anaa geynaya. aqalkaagana ha ka soo bixin inta aan soo noqonayo. meeshaan inta ha waay meeshaas. gurigaadana ha ka soo bixin intaan ka soo noqonayo. ilaa waa la fahmaa moogtahay hadduu guriga ka soo baxo. warqaddan qaadaa la yidhi wuxuu rabaa inuu boqorkii uu waayo wadaadkii. oo wadaadkii inuu warqaddii qaaday loo malay. marka marka gurigaa iska joog ha soo bixin, anaa baxaaya oo geynaya warqadda waa soo laabana. la taliyihii boqorka warqaddii ayuu qaaday. warqaddii u qaaday halkii markuu geeyey ee ninkii kale loogu talagalay ee uu warqaddii uu dhiibayna wakiilkii boqorku amarkii ayuu fuliyey. amarka maxaa ku qornaa? warqadda ninka wad hala dilo. oo kurkii buu ka jaray, qoortii uu ka jaray la taliyihii boqorka. waa kaas asagiyaa marka meesha saa qoorta laga jaray. meeshaas maxaa ka fahmaysa marka khayaana haddaad samayso aday kugu soo laabanaysaa. haddaa khayaano samayso aday wadaadkii isla hala dilo. warqaddii uu ka qaatay lacag in lagu qorantuu u maleeyey.
meeshii markii warqadii la furay hala dilo asagiyaa la dilo. markii maalmo la waayey ayuu boqorkii reerkiisii cid u diray. boqorkii la taliyihii u waayey, war la taliyahayga aaway, ciddiisu yidhi war ninkii aaway, oo la soo weydiiyey waxaa la yidhi war ninkii aaway muxuu shaqada u imaan la'yahay meesha uu la taliyihiisii ku maqan yahay, ila cidna ma ogan meeshuu aaday. markaasaa la yidhi nooma sheegin meel uu joogo. waxaa annaga meel uu joogo nooma sheegin, ee wadaadkii cid aragta ugu dambeeyeye hala weydiiyo. waxaa laga wadaa marka wadaadka adig kula jooga oo adiga wadaadkaaga ayaa marka ugu dambeysay is arkeen, isagaa qof la arko ugu dambeeyey bal aan weydiinna meeshuu la taliyihii aaday. wadaadkii ayaa loo yeeray oo la waraystay, markaasuu u sheegay inuu boqor la taliyihii isagu warqaddii qaaday. marka wuxuu ninkii boqorka la talinayey ayaa warqaddii qaaday oo uu u geeyey wakiilkii gobolka. wuxuu yidhaha ninkaas waa ii yimid, wuxuu dhahay warqaddaan laguu dhiibay anaa geynaadi iska joog. warqaddaas wuxuu meel lacag inay ku qoran tahay. boqorkii ayaa wadaadkii weydiiyey maxaad caawa sanka iyo afka iga qabsan weyday. boqorkii wuxuu la yaabay wadaadkii markuu imaaday sanka ma haysto afka ma haysto, caadigu la sheekaysanaya. wuxuu yidhi adiga hadda markaa ila hadlaysid afka maxaa u qabsan weysid. isaguna wuxuu u sheegay in aanu caawa wax tooni ku jirto soo cunin. sheekadii u ka sheegay marka isaga wuxuu yidhi habeenkaas la taliyahaaga ii wacay raashin oo toon ku jirto isoo sii. wuxuuna dhahay toonta oo iyo kaasoo urin boqorka afka ka qabso. marka caawa laakiin hadda wuxuu yidhi hadda wax toon ma soo cunin aniga. sheekadii u fahmay boqorkii marka. halkii ayuu boqorkii ku fahmay inuu la taliyihiisii uu khiyaamo isku dir ah watay oo uu dhintay. inuu dhintay suu ku gartay warqaddii uu qaaday maxaa ku qornaa qofkan hala dilo. qof magaciisa laguma sheegin, wadaadkan loogu talagalay. wadaadkii uu khiyaameynayay ilaahay subxana wa taala asiga khiyaamadii ku riday. boqorkii waa fahmay marka. mahmaadaana soo baxday marka booraan hadimo ha qodin, haddaad qodana ha dheerayn, ku dhici doontaana ma ogide. intaas waa mahmaaha wejid halkaani ka bilaabanaysaa mahmaahda. booraan hadimo ha qodin, haddaad qodidna ha dheeraynin, ku dhici doonta. waxaa la dhahaa god khayaano ha qodin. booraan waa god, hadimana waa khayaano, ha qodin adiga. haddii godkaas khiyaanada aa qodaysidna ha dheeraynin, sabab adina ku dhacdaa dhici karta. hadda ninkan god uu qoday ah in qof la dilo, waa dheereeyey, dil uu gaarsiiyey, asaa ku dhacay. marka waxaa waaye god khayaano ha qodin, haddii aa qodidna ha dheeraynin, inaa ku dhici doontana ma ogide. waayahay waxqabadka labaadaan gelaynaa. marka waxa aan ka war celinaynaa, waxaan ka jawaabayaa weydiimaha soo socda, kadib ayaan ku qorayaa buuggeyga layliga. su-aasha koowaad, boqorku waxa uu jeclaa aqoonta sidaa aynu ku aragnay sheekada. jacaylka aqoontu maxaa uu keenaa ee uu taraa. aqoonta inaad jeclaato waxay keenaysaa dadka aqoontana inaad jeclaato, aad ka faa'iidaysato, adigana horumar aad gaarto. 2, dulmigu ninka maleega, ninka soo sameeya waa soo qorsheeya, ayaa uu ku noqdaa. qofkii dulmi ka shaqeeya asuu ku soo laabtaa. sheekadan dadka ku jira keebaa ay ka muuqataa. ninka oo sheekadan ku jira oo dulmi intuu asaga qorsheeyey asaga kusoo laabatay kee waay la taliyaha boqorka. 3, sheeg tallaabooyinkii uu qaaday la taliyihii boqorku markii uu isku dirayey ninkii wadaadka ahaa iyo boqorka. wadaadku u tegey wuxuu dhahay toon uu ka dharjiyey, markaa u tegeysa boqorka afka ka qabso. boqorku u tegey ninka afku kaa qabsanaa sidii inaad soo uraysid oo kale. 4, sheekadani maxaa ay gudbinaysaa. sheekadan maxaan ka faa'iideynaa in khiyaarada ayna fiicneen iyo isku dirdirka iyo daacadnimada inay faa'iido leedahay. qoraal gaaban ka qor sheeko tan oo kale ah oo aad
maqashay ama aad u joogtay ha sheekadan oo kale oo aad maqashay ama aad u soo joogtay wax ka qoraa lagu leeyahay marka wax qabadka saddexaad waxa aan ka doodaynaa mawduucyada hoos ku qoran soona saaraynaa mawduuc waliba iyo cidda uu ka hadlaayo kow wuxuu ka hadlayaa marka la taliye xaasid ah markaa sheeko aan ka doodno marka la taliye xaasid ah iyo xaaladiisa labo daacadi ma hungowdo la taliye xaasid hadda sheekadeena uu ku jiray waa la taliyihii boqorka daacadi ma hungowdo waxaa ma khasaarto wixii ay rabtay ma weyso marka waa kana ninkii wadaadka ahaa ma khasaarin waayo saddex rag damac baa u wed ah wed waa dhimasho damacna waa waxaa naftaada damcayso damaca waa ahaa meeshaas gaar waxaa soo qaad hadda ninkan muxuu ku dhintay oo la taliyaha ahaa warqadii wuxuu u marayay lacag in lagu soo siinayo wadaadka damacaasu marka u dhintay rag damac baa u wed ah marka intaa wax damcayso malakulmooda kaaga sokeeya hubsiimo hal baa la siistaa marka hadda la taliye xaasida maxay khuseysaa la taliyihii daacadima hungooda wadaadkii rag damca baa u wed ah la taliyihii hubsiimo hal baa la siistaa boqorkay anfacaysaa taas leanno boqorka intuusan wadaadka uu warqadda u qorin hala dilo ah inuu iska hubsadaa la rabay inuu wadaadka u necab yahay iyo in kale waxqabadka afaraad waxa aan bulshada ogeysiinayaa dhibaatooyinka ay leedahay xaasidnimadu iyo la taliyayaasha aan daacadda ahayn xaasidnimada dhib badan ay leedahay la taliya oo xun haddaa samaysatidna sida boqorkaasoo kale dhibkaasuu kuu keenayaa kow madaxdu waa inay xushaan la taliyayaal daacad ah qof kastoo madax noqonaya waxaa la rabaa inuu samaysto la taliya aan khaa'in ahayn oo xaasid ahayn oo daacadda labo madaxdu waa inay iska hubiyaan wararka loo sheegayo haddii aad madax noqoto oo dadka kugu dhadho ay wax kuu sheegaan qof wax kaaga sheegaan iska hubi qofkii ha iska aadin adiga saddex madaxdu waa in aanay gaarin go-aano degdeg ah degdeg iska gaarin hubso adiga xubso sida boqorkan hadda uu go-aan degdeg iska gaaray wadaadka hala dilo dhibaata waay waxqabadka shanaad maahmaahyo maahmaahdu waa hadal oraah murti ku jirto oo dadka siinaya talooyin iyo tusaaleyn hadal oo murti iyo xikmad way murtida oo wax weyn kuu faa'iideynaya maahmaaha la yidhaha marka inta badan qisay ku timaadaa annaga oo saddex ah ardayda saddex ay u fadhiisanayaan ayaan ka doodaynaa saddexdiiba gooniha uga doodaan macnaha maahmaahyada soo socda waxaa ugu horeeya marka maahmaahyada koow waxa aan la hurayn horaa loo yeelaa waxaa laga wadaa wixii kolleyba qasab kugu imaan lahaa shaqo mar kasta kuu taallo ama jiif ama sug ama berri ka dhigo ama berri dambe ka dhigo wax mar walba kugu soo socdo gadaal looma dhigto waa lasii dhaafsiya horaa laga sameeyaa waxa aan la hurayn horaa loo yeelaa labo hali maalin bay ceel joogtaa marka waxaa weeye geela hashu hal maalinay geela timaada ay cabtaa bilay ka maqnaanaysaa marka haddee maalintaas waa inay ka faa'iidaysato marka waxaa loo soo qaataa mahmaadaas wax maalin walba adig ma kor joogaysid wax oo adiga aad beel cilmi ka baranaysa ama faa'iido maalin walba kulama joogto hal mar ay ku imaanay markaas ka faa'iidayso sarar sagaaro nin kuu saluugay saanteeda la tusaa sagaarada iyada iska yarba marka hilibkeeda qiimee sararta meesha la yiraahdo oo muxuu ahay feeraheeda haddii uu qof uu intaas siiso muxuu ah marti ku ah uu yiraahdo waa yar tahay waxa weeye sagaarada maqaarkeeda dhan sagaarada halahan iska marka sararteeda inay yar tahay muran ma ka taagin marka qofkii adoo wax yar haystay waxaad yaraa aad siisay oo ku dhahay weli ma igu filna qofkaasaa loo soo qaataa maahmaahdan sarar sagaara nin kuu saluugay saanteedaa la tusaa maqaarkeedaa la tusaa in awalba waa yartaa la dhaha waxa iyada dhan intaan leeg haddaan sararti kaa siiyey marka waa meeshii ugu weyneyda curis waxa aan curis ka qorayaa la taliye daacad ahaan ka sheekeynaa daacad u ah madaxda uu la taliyaha u yahay sheeko qor marka ku saabsan la taliye daacad u ah madaxda uu la taliyaha u yahay
marka hadda fiiri darsigeeni horta wuu dhammaaday waxa ciwaankiisu ah muxuu ahaa marka sir maqabe yaa waa ninka sir maqabaha ma taqaanin wadaadkii waaye miskiin uu ahaa daacad uu ahaa khayaano kuma jiro taliyaha u yeeray waxba u sheegay uu ka yeelay wixii uu yeeray iyadana lagu khiyaanayay marka adi haddaad daacad tahay ilaahay iyaa garabkaaga galaya waxaan filaya inaad dariska faa'iidaysateen si fiicanna u dhuuxdeen asalaamu calaykum waraxmatullahi